بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. waxaan doonayaa inaan wax ka yar taabto sicir bararka oo runtii aafo qaran oo dalka aafaysay oo imaka muddooyinkan ugu dambeeyay ama bilahan ugu dambeeyay aad iyo aad loogu mashquulsanaa. sicir bararkaasi runtii ama sarif bararkaasi duruufo badan oo dalka ayaa keenay. waxaan number 1 ka ahaa horta xoolihii noolaa markii la joojiyay tiirkii koowaad ay ahaayeen ee xoolaha nool lacagtaada inaga soo galeysay. kaasi waxa weeye saamaynta koowaad ayuu leeyahay oo markii lacagtii hard currency-ga ahayd dalku wuxuu ku tiirsan yahay kolba wixii uu dhoofiyo. lafdhabartu waxa ay xoolaha nool xoolii noolana way istaageen. Sacuudi Arabia loo diriyay had sayladda ugu weyn sayladda labaadna waxa Yamanayna dagaal ba ka socda wixii kale waa maradhaamo. haddaba waxa weeye haddii inta la waayay dalkeena maanta aafo qaran ayaa haysata oo aad arkayso in hadday xukuumad tahay iyo hadday golayaal tahay haddii kale la iska indhatirayo hadday shacab tahayba qodobkana haddii aan degdeg wax looga qabanin waxa weeye waxaanaynu ku meeraysanayno ee leeyahay kulba gudi la saaray waxa laali waxay taraysaa ma jirayso. qodobka aafada qarani ee dalkeena ku habsay waxa weeye baalkan la yiraahdo qaadka waxa weeye waxa sanadkii intaas oo boqol oo milyan oo dollar ayaa yearly ama sanadkii ku baxda ayadoo netana ama qoraalna wasaaradda maaliyadda u walhaya waana wax in badan dil la soo hadal qaaday. hase yeeshee waxa weeye wadibaatada jirta waxa weeye maanta shicib iyo dawlad iyo cid kasta iyo aqoon-yahan waxa weeye waxaynu u baahannahay qaadkani lacagta ku baxaysa waa lacag wax badan ka taraysa dalkeena ama sicir bararka aynu ka hadlayno ama sicir bararka haddii lacagtaasi noo baaqsato waa lacag kaabi karta inta yare dollarka ee dalkeena soo gashay waa lacag kaabi karta sida xawaaladaha kale. waxa mushkiladu tahay war waxaynaan wali aragu maddan ama qaran dhan oo raalli ka ah in shaygan qaadka oo daroogo markii cilmi baaris lagu sameeyay caalamka la yiri waa daroogo oo caalamkii daroogada ka baac mushtari jiray iska joojiyay aynu raalli ka nahay in suuqyada bartankooda lagu iibiyo shilinkeennii lacagteena dollarka ee hard currency-ga Itoobiyaanka aynu gudbino. waxaan leeyahay war culimo hadday tahay aqoon-yahan tahay hadday xukuumad tahayba iyo hadday golayaal tahay iyo hadday dadweyne tahay iyo hadday guurti iyo nooc kasta oo aqoon la bidayaba baalka waxaan ku talinayaa si loo joojin lahaa daroogada dalkeena aafaysay ee jiil baabiisay dhaqaalaheena naafaysay ee waxa la waxaynu Itoobiya kaga soo bedelanaa aanay jirin in laga qabto dood qaran laga qabto si loo joojin lahaa. xukuumadana waxaanu leenahay wartaladii dalka idinka xukuumadda fulintiya waa la isku kan garab taagayaan ummaduna maanta raalli bay ka tahay waar ummadda ku jeeyo qaadka maanta Soomaaliland waxay u baahan tahay in laga joojiyo waana lagu garab geliyo ummaduna maanta waa ka raalli. wassalaamu calaykum warahmatullahi waxa weeye lacagtan electronic waa arrimo kala daran yihiin. waxa weeye ayadu qudhooda inflation-ka qayb bay ka qaadanaysaa ama sicir bararka waa tan imaka la joojiyay isku sarifkii oo mushkiladda ugu weyn imaka sii abuuray isku sarifkii lagu bedelayay moobilka gudihiisa lagu kala bedelanayay wata xaalay ku eegay Telesom-na way iclaamisay كل دراساتنا والله هي هدي تكله أنت كله money transfer كله قيبتن كله بقولك وحي كبضنا دراسات يا والله لا صعوني هدي inflation قيب كقاضنا يسو أينا ولا شو شندونا وددنت هم دعنا هين لكن شيء جاي مكلم موضة هبين والبا أنت أو بقولال أو كانوا لا صدق بقولوا كانوا ضرب هبين كي مجال اللي قد حدونيا أو قاضة وحلا نكسب بدينا نشر dhibaatada koowaad weeyaa sawqaadka ee muuqata ee la taaban kara dalkeena haysta waqaadka